dabargo'a lixaad dhammaadka dunida aynu joogno ma aha mid lagu waarayo. waxay leedahay bardhamaad aan la dhaafi karin. bini aadanka iyo dhammaan nolosha kala duwanna waxay wajihi doonaan masiir isku mid ah. dhammaadka dunida waxa si faahfaahsan uga warramay kitaabka quraanka iyo xadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam. sidoo kale kutubtii hore ee uu Ilaahay soo dejiyay ayaa lagaga warramay habka ay u dhamaanayso adduunyadu. saynis yahanadu waxay ka warramaan 5 dhacdo oo khatar weyn geliyay nolosha ka jirta meeraha dhulka, kuwaas oo galaaftay nolosha inta ugu badan noloyaashii badda iyo bariga. nasiib wanaag dhacdooyinkaas waa laga soo gudbay, inkastoo ay galaafteen nolosha nafa ka badan inta badbaaday. June 5, 2022 maalqabeenka ugu taajirsan dunida, ninka lagu magacaabo Elon Musk, ayaa bartiisa Twitter-ka ku baahiyay qoraal uu ku sheegay inuu dhisayo 1000 dayax gacmeed oo ugu talagalay inuu nolosha ugu raro meelaha Mars, isagoo ku magacaabay doonta casriga ah ee Nebi Nuux. 5 bilood kadibna waxa uu baahiyay sawir kale oo muujinaya xayawaano laba ah oo lagu rarayo dayax gacmeed casri ah. arrinta cajiibka ayaa ah in sawirkan uu soo dhigay Elon Musk la xardhay 50 sano ka hor, taariikhdu markay ahayd 1968, xilli uu meel adag marayay tartankii cirka ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Midowga Sofiyeedka. mala'awaalka humaaga waxa iskale farshaxan ama artist Japanese ah oo lagu magacaabo Shigeru Kamitsusaki. qoraalada Elon Musk waxay salka ku hayaan aragtiyo saynis ah oo tilmaamaya in adduunyadu wajahayso dabargoyn galaafan doonta nolosha iyo noolahaba. wiisha madow, diinka weyn ee biinta, shimbiraha qurxoon ee Sphinx macaw, dhammaan waa xayawaano dunida ka dhammaaday 10 sano ee ugu dambeeyay. meesha kaliya ee laga fiirsan doonaana waa shaashadaha casriga ah. xayawaanadani waxay qayb yar ka ahaayeen 16,000 oo noole, kuwaas oo khatar ugu jiray inay ka dabargo'aan adduunyada. in ay meesha ka baxaan nooc fara badan oo noole ah waxay caddayn u tahay inaynu wajahayno dabargo'ii lixaad ee dunida. 5 dabargo ee ka dhacay adduunyada. wuxuu dhacay 440 milyan oo sano ka hor. isbeddel cimilo oo waaweyn ayaa dhacay. oogada dhulka waxa hareeyay barafku manaan sano fadhiyay, kaas oo dabargoyn ku sameeyay 85% noloyaashii dunida saarnaa. 365 milyan oo sano ka hor ayuu dhacay. dhagax cireed ka soo dhacay dhulka ayaana sababay dabargo' nolosha dhaafiyay inta ugu badan xayawaanadii ku sugnaa dhulbaraha koonka. dabargo'ani wuxuu ka taqalusay 96% noloyaasha adduunka saarnaa. foolkaanayaal waaweyn oo ka qarxay Siberia ayaa sabab u ahaa dabargo'an. ka hor 210 milyan oo sano ayuu dhacay. oogada dhulka ayaa noqotay saxare lama degaan ah kadib markii ay ku dhufteen mawjado kulayl ah. 65 milyan oo sano ka hor ayuu dhacay, wuxuuna ka dhashay dhagax cireed ku dhacay oogada dhulka, taas oo nafgooyo u geysatay qiyaastii kala badh noolihii saarnaa guudka adduunyada. inkasta oo 5taas dhacdo ay ahaayeen taariikh ahaan kuwa kala fog kana da'weyn diiwaanada taariikhda, haddana waxa lagu ogaaday baaritaano qodaal oo lagu sameeyay dhulka oo lagu daray xisaabo lagu qiimeeyay khasaaraha dhacdo kasta. dhulka aan joogno Ilaahay wuxuu u qaabeeyay hab uu kabasho ugu samayn karo waxyaabaha la soo darsa. geed walba oo go'a beddelkiisa geed kale ayaa soo baxaya. xayawaan walba oo dhinta ama baqtiyana beddelkiisa xayawaano kale ayaa dhasha. meertada nooluhuna sidaas ayay u soconaysaa inta laga gaarayo maalinta qiyaamaha. shaki kuma jiro in aadanuhu yahay makhluuq Ilaahay ku galladay garasho, caqli iyo awood uu ku maamulo dhulka. muddadii uu joogay koonka isbeddel weyn ayuu ku sameeyay edegga hoyga u ah malaayiinta noole ee Alla abuuray. si aynu faham fiican uga qaadanno xaddiga isbeddel ee aadanuhu ku sameeyay dhulka, aynu dib u milicsano sirta ka dambaysa dhacdooyinkii dabargoynta ka geystay dhulka. tilmaanta ay wadaagaan 3 dhacdo ee ugu khatarta badan ayaa ah isbeddelka dhadhan ee ku dhacay biyaha badda. daraasadda la shaaciyay sanadka 2019 ayaa lagu xusay in miisaanka macdanaha ee biyaha baddu uu isbeddel xoog leh ku dhacay intii ka dambeysay 1980kii. daraasaddan oo uu soo saaray guddiga dawliga ah ee isbeddelka cimilada ayaa lagu sheegay in dhanaanka biyaha baddu uu sare u kacay eber 2 tobankii sanaba
isbeddelka biyaha baddu wuxuu dhashaa marka uu furmo gaaska carbon dioxide oo ah kan mas'uulka ka ah isbeddelka cimilo iyo kulaylka adduunka uu ka cabanayo. waqti xaadirkan kaarboonku wuxuu gaadhay heerkii ugu badnaa muddo 800,000 oo sano ah. dhammaadka qarnigan waxaa la filayaa in heerka kaarboonku uu gaadho xaddi uusan gaarin 15 milyan oo sano. shidaalka la gubo ee loo adeegsado baabuurta, dayuuradaha iyo warshadaha ayaa ah sababta koowaad ee sare u kaca kulaylka. dadkii hore ee aan soo gaarin tiknoolajiga casriga ah ma ahayn kuwa bilaa dembi ah, sababtoo ah waxay gooyeen malaayiin dhir ah oo ay xididdada u siibeen, kuwaasoo ay ka samaysan jireen hoy, hub iyo qalab kala duwan. sidoo kale ugaarsi xawli ah ayay kula kaceen xayawaano maanta dunida ka ilaaday. biyo xireennada ay sameeyeen ayaa gebi ahaanba beddelay jihada socod ee webiyada qaarkood. hore iyo haddaba dadku waxyeelo toose ayuu u geystay deegaanka. geediga joogtada ah ee dadkii hore waxaa dhinac socday in qaar ka mid a xayawaanada ay u raraan meelo ka baxsan deegaan nololeedkii dabiiciga ahaa ee uu alla ku uumay. marar badan arrintani waxay horseeday inay khatar geliso noloyaashii ku sugnaa dhulka cusub ee loo guuray. saynisyahanadu waxay u muuqdaan kuwa rajabeel ah marka laga hadlayo sixidda habdhaqanka qaldan ee aadanaha, kaasoo horseedaya halaag wadareed ka dhaca koonka. Professor Paul Ehrlich waxa uu qabaa in dhulku uusan xamili karin xaalufinta iyo wasakhaynta aadanuhu ku kacayo. waxa uu sheegay in loo baahan yahay 5 meere oo dhulka la mid ah si loogu qaybiyo dhibaatada ku dhaca meeraha buluugga ah. celceliska heerkulka dhulku waqti xaadirkan waxa u dhexeeya 1.5 digrii ilaa 1.8 digrii. dhammaadka qarnigan waxaa la filayaa inuu gaaro 4.4 digrii. saynisyahanaduna waxay qiyaasayaan haddii heerkulku dhulku gaaro 5.2 digrii inuu koonka ka dhici doono waxay ugu yeelan dabargo'a lixaad. maadaama bini'aadamku yahay mid ka sababay khatarta ku soo wajahan meeraheenna, isaga ayaa looga baahan yahay xal u helidda dhibaatada. cilmi baarayaashu waxay waqti geliyeen diyaarinta qorshe hoos loogu dhigi karo heerkulka koonka. wejiga koowaad ee qorshahan waxaa loogu talagalay inuu fulo inta ka horreysa 2030. 200 oo dowladood ayaana saxiixa ku duugay xaqiijinta qorshahan oo ka kooban 20 qodob. qodobka ugu muhiimsan ee qorshahan waa joojinta xaalufinta kaymaha oo hoy u ah malaayiin xayawaan, kuwaas oo noloshoodu ku xiran tahay kaymaha rooban, kana hela hoy, cunto iyo gabaad intaba. wejiga labaad ee qorshahan waxaa loogu talagalay inuu fulo inta ka horreysa sanadka 2050. qodobka ugu muhiimsan ee wejiga labaad ayaa ah in 70% la dhimo isticmaalka ilaha tamarta ee shidaalka iyo dhuxusha, kuwaas oo gaasas wasakhaysan ku sii daaya hawada. marka la gaaro 2050 waxaa qiimeyn lagu samayn doonaa waxa ka qabsooma qorshayaasha. dabcan natiijadu waxay noqon kartaa in qorshuhu u fulo sidii loogu talagalay, laguna guulaysto hoos u dhigista heerkulka dhulka. sidoo kale natiijadu waxay noqon kartaa in lagu guuldarraysto qorshaha oo cimilo kulaylku sii kordho. kee ayuu noqon karaa qorshaha badbaado ee ugu macquulsan? waa midka ay hoggaanka u hayaan saynisyahanka iyo dowladaha ee hoos loogu saxayo cimilada adduunka, mise kan uu hogaaminayo Elon Musk oo loogu qaxayo meerayaasha kale ee ka fog dhulka? hoos noogu reeb fikirkaaga.